maalmihii la soo dhaafay waxaa la baarayay oo la sameynayay baroobo taasoo ahayd in maskaxda bini'aadanka la dhexgeliyo mise lagu abuuro jib cusub taasoo ah in laga dhigo bini'aadanka sidii kombiyuutarka oo kale. arrintaasna waxaa watay kambaniga caanka uu leeyahay ninkii caanka ah maalqabeenkii Elon Musk. marka waxaa loo socdaa adduunka in lagu sameeyo kacdoon cusub, kacdoonkaasoo ah isbedel weyn in adduunka uu ka dhaco. isbedelkaasi adduunka ka dhici doona waxaa waaye in maskaxda bini'aadanka gudaheeda lagu abuuro mise dhexgeliyo qalabkaasoo ah sidii in la geliyo qalabkaasoo ah sida u taqaanaanba sim car mise wax loo yaqaano chip waxa u eg shariixada telefoonka oo kale. maalqabeenka Elon Musk wuxuu rabaa in maskaxda bani'aadanka uu wareejiyo oo ka dhigo sidii kombiyuutarka oo kale mise uu isku xiro maskaxda bani'aadanka iyo kombiyuutarka taasoo keeni karto qofka bani'aadanka hadduu u baahdo wixii maskaxdiisa ku jiray inuu soo daabacdo mise uu soo saarto qad ahaanna u daabacdo wuu awoodi karaa. iyo macnaheeda kalena uu sii yahay in qofka bani'aadanka maskaxdiisa iyo xasuustiisa uu ku samayn karo dayactir taasoo noqonayso inaadan ilaawin wax allaala wixii noloshaada soo maray oo aad u xasuusato talaabo ka noloshaada waxay noqon doontaa in wax allaala wixii ku soo dhacay maskaxdaada mise ku jirjiri maskaxdaada oo aad soo daawlan garay kartid. macnaheedana waxa waaye hadda kadib looma baahna waxbarasho mise iskuul iyo jaamacad maxaa yeelay wax allaala wixii adduunkan jira mise aad u baahan tahay waa taqaanaa maskaxdaada ku jiraan. maxaa yeelay maskaxdaada waxaa laga dhigay sidii kombiyuutarka oo kale. iyo faa'iido kale oo sheegay Elon Musk inay lahaa doonto qalabka cusub maskaxda la geli doono ayaa wuxuu yahay in maskaxdaada xasuustaada sidooda ay ku ahaan doonaan mar allaala markaad u baahatana xasuusihii hore iyo dadkaaga hore iyo wixii jecleed iyo waxyaabaha jeclaa jirtay dadkaa jeclaa jirta kala tagteen mise kala fogaateen inaad dib u xasuusto mise aad daawato waad daawo kartaa, waadna soo daabaca kartaa, waadna soo daawalan karay kartaa. macnaha noloshaada dhan waxay noqonaysaa haddii qof oo kaa tag mise wax u baahdo mise haddii xasuus aad rabtana soo xasuusato inaad dhexgasho faylashaas maskaxdaas ku jiro oo aad hal u daawato. balse waxaa kaloo lagu leeyahay laga yaabo qalabka cusub maskaxda la geli doono in maskaxdaada laga xado. macnaha qalabkan waa sida telefoonka oo kale mise kombiyuutarka oo kale waxaa macquul ah in laga xado meesha aan noqoto qof maskaxdiisa la isticmaalayo. macnaha waa lagu hakargaray karaa. balse markii la sameeyay baaritaan dheer kadib baaritaankii uu socday muddo waxaa soo baxday in ka badan 15 daayaradaas oo ahaa daayaradii lagu sameeyay baroobada ee dhinteen kadib markii maskaxda loo geliyay chipkan mise aaldan cusub loo baahan yahay bini'aadanka maskaxdooda in la geliyo. waxaa kaloo lagu leeyahay daayaradaas oo lagu baroobeeyay intaysan dhimanin ka hor in la arko daayaradaas oo jirkooda qaniinay mise jarjarayo kuwaasoo waxaa lagu arkay xanuunyo badan iyo dhibaatooyin badan ay soo wajahayso intaysan dhiman kadib markii maskaxda loo geliyay shariixadaasi. xataa waxaa la arkay daayar farta iska gooyay iyo daayar wejigiisa ku ciyaaray. badanaa waxaa lagu leeyahay dhibaatadaas ku dhacay daayarada waxaa u keentay naxdintii oo ka naxay markuu arkay mise oo la kulmay waxyaabaha jirkiisa la soo geliyey taasoo ku noqotay wuxuu ka naxo oo u sababtay dhibaatooyin badan. taasaa marka waxaa keenaysa bani'aadanka haddii waxaa maskaxda loo geliyo in asina uu sameyn doono dhibaatooyin badan mise isku sameyn doono dhibaatooyin aad iyo aad u tiro badan. marka bani'aadanka waxaa la rabaa jirkiisa lagu ciyaaro laga dhigo sidii la rabo. hadhowtan wuxuu noqonayaa bani'aadanka wax la kontroolayo la maamulayo sidii remote-ka oo kale loo hagaayo. kambaniga magaciisa la yiraahdo Neuralink oo iska leeyahay ninka maalqabeenka Musk ayaa waxay yiraahdeen in bani'aadanka lagu sameeyo doono baroobooyinkan maskaxdooda la geli doono 2022 dhamaadkeeda. marka waa arki doona bani'aadanka maskaxdooda la geliyo siday noqon doonaan. فقالوا ربنا